doorashada 2016 14,525 ergo doorasho ayaa sanadkan waxa ay doorteen xildhibaanada 275 ka ah halkii xildhibaan waxa uu codeeyay 51 ergo madaxweyne xasan sheekh ma sii wadi doonaa 4 sano ee uu xukunka haystay waa markii labaad ee dalka doorasho ka dhacdo laakiin tan ka duwan tii 2012 ee uu ku soo baxay madaxweynaha hadda halka xilka haya doorashada aqalka hoose Puntland guud ahaan tirada xildhibaanadu waa 37 dhammaan xildhibaanada waa la doortay 7 kamida waa haween koonfur galbeed guud ahaan tirada waa 69 dhammaan waa la doortay 14 kamida waa dumar Somaliland guud ahaan tiradu waa 46 xildhibaan 20 xildhibaan oo la doortay 7 ayaa haweenka ah Jubaland guud ahaan tiradu waa 43 xildhibaan 10 kamida waa dumar Galmudug guud ahaan tirada waa 36 xildhibaan 9 kamida waa dumar Hirshabeelle guud ahaan tirada guud waa 38 xildhibaan 10 kamida waa haween gobolka Banaadir guud ahaan tiradu waa 6 dhammaan xildhibaanada la doortay waa 5 xildhibaanada Banaadiriga mid ayaa haween ah guud ahaan xildhibaanada la doortay waa 247 189 kamida waa rag halka 58 ay yihiin dumar aqalka sare oo ah markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay yeelato ayaa xubnihiisu waxa uu ka kooban yahay 54 waxa la soo gabagabeeyay inta badan gobolada dalka Puntland 12 xubnood 3 ayaa haween ah Galmudug 8 xubnood 2 ayaa dumar ah Hirshabeelle 8 xubnood 2 ayaa haween ah Koonfur Galbeed 8 xubnood 2 ayaa dumar ah Jubaland 8 xubnood 1 ayaa haween ah inta la doortay waa 43 xildhibaan waxaa dhiman 12 xildhibaan oo ka soo jeeda gobolada Somaliland 10 kamida waa dumar 33 kalena waa rag maamulada Galmudug Puntland Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa dhammaantood soo dhameystiray xubnaha labada aqal ee kan hoose iyo kan sare haddaba yaa mudan xilka madaxweyne 4 sano ee soo socota kala soco goobjoog doorashada madaxtinimo ee sanadkan 2016